haddii aad u baahan tahay afur fudud waqti badan aan kaa qaadanaynin soo dhawow videogan adiga lagugu talagalay. Halkan waxaan kasoo bilaabeynaa salar soo jarjaraneynaa qaabka adiga rabtida usoo jarjaranaysaa. Hadaa rabti waaweyn usoo jarjaranaysaa, hadaa rabti yaryar usoo jarjaranaysaa. Markuu salarka saan diyaar noogu noqdo haddana waxaan soo sameysanaynaa sooski aan ku sameysan lahayn aan ku darsan lahayn waxyaalaha sameyn rabno. Markaan sooska sidaas usoo diyaarsano, sooska waxaa ka sameynay tomato sauce iyo yellow mustard. Markaas usoo diyaarsano haddana hilibkeena digaaga soo jarjaraneynaa. Muhiim ah in digaag isticmaashid, geel xataa waa isticmaali kartaa. Waaweynkaasaan usoo jarjaraneynaa hilibkeeni, waxyaalihii caraf lagu daray dhanaan ku dareynaa. Waxaan kaloo kusoo darsaday yogurt plain waa kana hadda hilibkeeni sidaan quruxda badan uu usoo diyaar garoobay. Markuu hilibkeeni saas diyaar u noqday, meeshaan waxaan kaloo ku haysanaa cheese-ka waxaa haysanaa midka sliceska 15 xabaa ku jirto. Kadib waxaa kaloo halkan ku haysanaa rooti, 2 boco rooti halkan ku haysanaa. waa kana marka anagoo hadda bilaabayna bismillaah. waxaan soo jaraneynaa waxaan soo baxsaneynaa rootigeeni halka xabo ugu horeeyo. Markaan soo baxsado waxaan soo marinayaa, saasa u kala fureysaa. markaas saas u kala furtid sooskaaga ayaa soo marsanaysaa. isku darsata sooska qasab ma ahan labada aan isticmaalina isticmaashid. mayonnaise hadaa jeceshay waa isticmaali kartaa. waa kana hadda anigoo sooska soo mariyay, haddana waxaan kaloo kusoo daray saladka. markaan kusoo daray hilibkii aan kusoo daraya. hilibka saas cadkaas waaweyn aan kasoo dhigay. waa in wixii wax laga dhargaayo oo macaan ay noqdaan. markii hadda hilibka saas aan ugu soo daro, haddana waxaan kusoo darayaa sooskii. markaan kadib sooska saas ugu soo daro, haddana waxaan soo qaadanaynaa cheese-kii mar hore aan fridge kasoo bixiyay. waqti badan uu banaanka yaalo, waa iloobay inaan xoogaa fridge ku celiyo. marka saanta usoo bixiyay hadda wuu go-go'aya, markaas usoo qaadaya, laakiin dhib ma lahan. marka hadda waa kana saasaan ugu soo dardarayaa cheese-kii markaas saas isugu soo daro waa isku soo xireynaa. waxaan sameyneynaa halkaas saas hadda waaba diyaar. marka sidii aan ku wadeynaa haddana mid kale aan soo qaadeynaa, isla processkii aan marineynaa. salarkii aan saareynaa, waa iloow markaan salarkii inaan saaro hilibkii aan ku bilaabay. salarkii aan saareynaa, salarkii markaan saarno haddana hilibkii aan saareynaa. maasha allah tabaarakallah, lagama sheekeyn karaan ku dhehe. hawshaan hala soo tijaabiyo. maalin kasta sambuus ma la karin karo. maalmaan waxaa jirta eeba kaa heeninba inaa wax karisid ama iska caajisan tahay ama dan kale ay ku haysato. marka rootigaada iska soo gadanaysaa, hilibkaaga karinee, salarka jarjarane, cheese-kina waa kaa, sooskaagina waa diyaarsanay. maxaaba kaa maqan marka ovenka gelisana waqti badanba kaagama baahnabo, maadaama rootigan uu diyaarsan yahay. cheese-kaas inuu ku dhalaalaa la rabaa, muhiimada u weyn waa intaas. marka hadda waa kana hadda dhowr xabaan soo sameeyay. weli waxaan wadnaa inaan maxaa la dhahayo sameyno oon soo dhamaystiraan rabaa, maadaama uu 2 bac yahay. 2 bacna meeqa xabaa ku jirto, I think 6 xabaa ku jirto. 6 xabaa ku jirto. marka waxaan rabaa kulli inaan wixii soo marmariyo. maanta maxaan dhahayo markaan kan kariyay afurna waxaan karsanay bariis. waxyaalihii kale lama soo duubin maadaama waxyaalaha kale waxaa iska garanaysiintiin. waxaan dhahay bal asxaabta u faa'iiday maadaama laga yaabo inay kaa faa'iidaan. aniga markii aan rabin inaan afur badan kariyo ama shaqada igu badan tahoo kale, sidaanoo kale intaana isku soo darsadaa. waana cunto macaan oo laga dhargaayo loona xiisaayo. marka waa kana hadda sidaana weli usoo diyaarineynaa. cheese-keeni yaa kusoo dareynaa. allaahuma baarik. quruxda kaaga daran markii saas loo haayo. markaa gelisid ovenka uu isku soo dhalaalo waaba diyaar. aniga hadda maadaama hadda shalakan karinaaye iyo waxyaalo kaloo yaryar iska karinaya, jikada waqti dambaan galay. marka hadda markaan kansaa u diyaarinaaye waxba kama dhimaanba in la afuro. waxaa ka dhinaa waqti yar, wallaahi 10 daqiiqo 15 daqiiqa ka dhinaa. marka saasta ovenka u gelisidba wuxuu noqonayaa diyaar, maadaama waxa dhan ay karsan yihiin. marka waa kana hadda sidaan quruxda badan uu noogu soo baxay. maasha allah, labadeena saxan waa noo diyaar. kaali iska aragaan ku dheh. marka hadda sidaan markuu diyaar noogu yahay, waxaan soo qaadanaynaa saxankeeni aan ovenka kula gelin lahayn. saxankan kulama gelin karo. marka waa kana hadda dhaladii aan kula gelin lahaa ovenka waan soo shitay. waxaan rabaa markuu yar kululaado inaan geliyo waxaan dhan hal mar see isugu milmaan ama u meeltagareeyaan. waa kana marka hadda anigoo saan usoo diyaariyey, hadda waxyar kadibna waaba kasoo bixinayaabo. kaali iska aragaan ku yidhi. hadda waa kana anigoo kasoo bixiyey, sidaasuu kusoo baxaan ku dhahay. macaanka kaaga daran saasuu u kala jiijiidmayaa. marka hala soo tijaabiyo asxaabta. waa hubaa inaad ka heli doontiin. wax aan waqti badan inka qaadanayana maahan. marka hala soo dhawaado. comment, like, subscribe kii aan laga iloobin. anigana waxaan rajeynayaa waxyaalo kale inaan idiin soo gudbiyo. fii amaanillah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatu. Bye.